فإن أردت هداد دونت أيها الأخ ولا النجاة بدباد هداد رادي سواد دونت من هول شدة يدبات هذا من ذلك اليوم مالك سليه ومالك ومالك قيامة هداد دونت مالك إنت بدبادو وشدة يدبات هذا يرفعت كمالك أشر إنت كبد بعد هداد دونت فاستعد له بالتقوى وحدود يرقروا ذا الله كعبس بلقى الدنيا الله كعبس أي لقى الدنيا فإن أردت هداد دونت أيها الأخ والعلو النجاة بدباد هداد دونت من هول ذلك اليوم مالك هول كيس يشددي سيدباتدي سهداد بدبادك دونت وإن الله كبدباديات دونت فاستعد له أدي يرقروا بالتقوى الله كعبس ninkii doonaya inuu badbaado oo maalinka ilaahay badbaadiyo waa inuu alla ka cabsiga oo diyaarsada oo alla ka cabsiga u diyaar garooba ninkii doonaya inuu awliyaa rahmaanka uu ku biiro isaguna waa inuu alla ka cabsiga ugu horeeya talaabada kuwaad u qaadaya waa in alla ka cabsi meesha yaala wa hifdhi aljawarih وإنه إلى ليا جوارحه سيحبنيس وغضب كاللبات إلا قادوني قفكي دونه إن إلهي بدبادي مالك قيامها الشددي سأل لغشا كان كرينين قفكي دونه يا إلهي نكبد بادي فاستعد له بالتقوى الله كعبسها ديارسوا وغضب ككوبات غضب كاللبات وحفظ الجوارح وإنه حبنه سإلالية حبنه س وإنه إلالية حكى إلالية عن جميع دمان ما حرمه الله تعالى وح الله لوحي إلهي كحرمي وإنه كإلالية حبنه س وح الله لوحي إلهي كحرمي حبنها كإلالي وغضب كاللبات وحفظ الجوارح قفك إنه إلالي حبنيس وحكى إلالي عن جميع دمان ما حرمه الله تعالى وح الله لوحي إلهي حرمي أي حبنيس كإلالي قضب كصدحات والقيام وإنه يستاقع بجميع دمان ما أمرك الله به وح الله لوحي إلهي كأمرينا دمانتي وين تستاكته من الحقوق المدونة حقوق دي لقري لقونا قري في كتب الفقه كتب تفقه من الحلال والحرام حلاشي يا حرامتي والحدود والأحكام حدودي يا أحكامتي قضب صدحات لقى الدنيا وحوية والقيام إن تستاكت بجميع ضمان ما أمرك الله به وح الله لوحي إلهي كفري إن تستاكت إلهي محيولي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وح الله لوحي النبي محمد إذن لي معضو قاتل وح الله لوحي إذن كرهبنا كبير هذا كفوق هذا والقيام ينستاق بجميع دمان ما أمرك الله به وحي الله أمري ومن حقوق دي المدونة لغو قري في كتب الفقه كتب الفقه من الحلال والحرام والحدود والأحكام وين تستاقتها بحيث ميل لا يبقى أي سنباقي كن قنين عليك كركاغا في الشريعة شرعة الحديدة مطالبة وحي شرعه كهذا البنس وح الله لو وحي لو فري هذا الله تمات وين أنا باقي كن قن
waxay shareecadu ay kaa dalbanayso oo lagu leeyahay macnaha shareecadu maxay kaa rabtaa salaad kaama rabto haddaanad salaada aanad oogin shareecadu maxay kugu leedahay oo kaa dalbanaysaa salaadii inaad la timaado saka lagu leeyahay shareecadu maxay kaa rabtaa wax walba waa inaad miiska saartaa waa inaan shareecadu waxba kaa dalbanin oo wax walba aad noqotaa ama faydni waxba hay farin waa inaad wax walba miiska soo saartaa laakiin haddii qayb lagugu leeyahay xuquuqaadkii soo dhibteeda ma laha markaa sheikhu wuxuu ku leeyahay bixaytu meel wey waa inaad meel gaadhaa laa yabqaa aysan baaqi ku noqonin calayka korkaaga fi shariicati shareecada dhexdeeda mudaalabatun waxa shareecadu kaa dalbanayso waa inaad wax walba soo diyaarisaa walaa yabqa waa inaanay baaqi ku ahayn fii dimmatika dushaada salaatun salaad faa'itatun kaa tagtay waa inaan salaad kaa tagtayna baaqi kugu ahayn oo lagugu lahayn taana waa inaad ku dadaashaa laa yabqa walaa yabqaa waa inaanay baaqi ku ahayn fii dimmatika dushaada salaatun faa'ita salaad tagtayna waa inaan lagugu lahayn allamaan tukan salaad baa lagu iyo dhicin taas yehee dhicin waa inaad salaad walba waqtigeeda aad ilaalisaa walaa sawmun faa'itun soon ku dhaafayna waa inaanay baaqi kugu ahayn bishii hore maan soominoo waa kaa maxaad u soomi weyday wallaahi waa iska mashquulsanaayo waan qallayn doonaa waa inaan soon lagugu lahaynoo waad macnaha soomka waqtigiisii waa inaad ilaalisa walaa yabqaa sawmun waa inaan soomna baaqi kugu ahayn faa'itun soon tegee ku dhaafay waa inaan lagugu lahayn waa inaad tahay nin xuquuqdii lagugu lahaa oo dhan midni miiska saare waa inaad noqotaa walaa sakaatun waajiba saka waajib ahna waa inaanay baaqi kugu ahayn sakadii hore maan bixin mashquul baan ahaa buu ku leeyahay waa inaad sakadana xilligeeda ilaalisaa oo iyaduna walaa yabqaa waa inaanay baaqi kugu ahayn sakaatun waajiba saka waajibihina walaa yabqaa waa inaanay baaqi kugu ahayn ghiibatun lilmuslim qof muslima xantiina waa inaanay baaqi kugu ahayn bikayri xaq waad u xamatay xaqdar qofaad iska xamatay ma hebel waa sidaas hebel waa ustus hebel waa nooca taasi waa inaanay jirin xaq baad ugu leedahay walaalkaaga muslimka ah inaad xamato ood ceebihiisa dib ka sheekaysa gadaal kaga warantaa sax maaha walaa yabqaa ay walaa ghiibatun lilmuslim qof muslim ah xantiisana waa inaan lagugu lahayn bikayri xaq xaqdarada walaa yabqaa walaa mukhaasamatun ay walaa yabqaa waa inaanay baaqi kugu ahayn mukhaasamatun dood iyo muran walaa shaxnaa'u cuqdadna waa inaanay baaqi kugu ahayn walaa baqdaa'u nacaybna waa inuusan baaqi kugu ahayn bikayri xaqin xaq aan ahayn walaalka haddaad muran iyo dood madhalays ah oo qarjajac ah aad markaad arto iskala fuusho hebel miyaa hebel isaga markuu hadlaba muran baan ka horgeeyaa buu ku leeyahay hebel muran baan ka horgeeyaa hadalkiisa iyo wuxuu ka sheekeynayaba shucaac iyo tushush baan ku furaaba wax allaala wuxuu ku leeyahayna ma jirto war ninka maxaa horta la murantaa oo aad hadalkiisa u dhex gashaa ninkaa may hadalkiisa iska nacabhayba waa nimaan iskaba nacaba hadalkiisaasaan ogolaynba marka walaa mukhaasamatun waa inaan doodna iyo muran baaqi kugu ahayn walaa shaxnaa'u waa inaan cuqdadi baaqi kugu ahayn cuqdad baad iska nin baa saaxiibatin cuqdad markaad arta wadada ugu war maxaa dhacay من نكا عقدد نفسيا نكا وحوي نفسيا بانو نعيبا نكا عقدد با يقول أرتا مركان أركبا مركان أركبا عقدد با يقول أرتا والله نكا سوي حقوق يستي
iyo wuxuu kugu sameeyey midna ma jirto caqdad unbaa ninkaa un kugu jirta waa inaanay jirin intaasina baaqi kugu ahayn walaa bagdaa'u nacayb waa inaana nacayb baaqi kugu ahayn bikayri xaqa warheedha markaad ninkaa aragtata maxaad la gubataa maxaad la madoobaysaa may ninkaasaan araggiisa ay dhibaya buu ku leeyahay araggiisaaba ninkaa ay dhibaya waa qof muslima walaalkaa muxuu kugu sameeyey wallaahi waxba iguma samayn laakiin anaaba iskaba necebba dadku maanta maxay kula fogaadeen isagaan qofna qofku waxba ku samaynin ba haddana la kala cararaya ninka araggiisa ay dhibi ku leeyahy nacayb buu isaga qabaa wax allaala wuxuu ku dhisay nacaybkaasina ma jiro lama ogola sheikhu wuxuu ku yidhi wacmal camal fal baa lagu yidhi calaa an tubari'a si aad u beri yeesho saaxataka hortaada maxaa laga beri yeelayaa min kulli xaqin xaq kasta oo baynaka wa bayna allah adiga iyo alla idin dhexeeya wa min kulli xaqin iyo xaq kastoo baynaka wa bayna alcibaad adiga iyo addoommaha idin dhexeeya taasina waa inaad iska beri yeeshaa sheikhu wuxuu ku yidhi wacmal camal samee oo camal fal calaa an tubari'a inaad beri yeesho saaxataka saaxada waxaa la yidhaahdaa fiyaaradda hore barandaha hore maxaa laga wadaa adigu naftaada waa inaad beri yeeshaa xag walba dhinac walba naftaada waa inaad ka beri yeeshaa maxaa laga beri yeelayaa min kulli xaqin baynaka wa bayna allah xaq kastoo u dhexeeya adiga iyo rabbiga adduunkan maxaa laguu keenay wamaa khalaqtu ljinna waal-ins ilaa liyacbuduun soo ma aha adduunka waxaa xikmadda lagu keenay waxay tahay ilaahay inaad caabuddo waxdaaniyaddiisa inaad ka shaqayso oo alla aad kala yeesho wax allaala wixii alla ku faray kugu waajibiyeyna aada la timaado xuquuqdii alla kugu waajibiyey way la timaada haddaad la iman weydo oo xaqii alla ku faray aada gudan weydo waxaad sugtaa soo ciqaab alle maaha un markaa sheekh wuxuu ku leeyahay wacmal camal falwi man kaana yarjuu liqaa'a rabbihi falyacmal camalan saalixan soo lama odhan qofkii alla rajeynaya la kulankiisa waa inuu camal wanaagsan soo shaqaystaa markaa wacmal camal fal oo camal wanaagsan la kaalay calaa an tubari'a adigoo ku beri yeelaya saaxataka hortaada iyo naftaada maxaad iska beri yeelaysaa min kulli xaqin xaq kastoo baynaka wa bayna allah adigii alla idin dhexeeya wa min kulli xaqin iyo xaq kastoo baynaka wa bayna alcibaad adiga addoommada idin dhexeeya addoommada waxaa idinka dhexayn karaa wixii idin dhex maray idinka dhexeeya iska ilaali haddii wax kugu leeyihin waxooda u gudo u celi waxay kaa mudan yihiin inaad nabadgeliso af iyo addinba inaad ka haysato waxay kaa mudan yihiin inaad saacidaad caawiso waxay kaa mudan yihiin inaad wax tarto waxaad tari karto laakiin waxay kaa mudan yihin inaanad xumaan aanad u geysanin shiikhu wuxuu ku yidhi fa hunaalika halkaas halkee adiga oo ilaahay subxaana wa tacaala taqwadiisii la yimi xubnahaagii adigoo ilaaliyey oo wixii alla kaa xarimay baad ka ilaalisa waxaad la timi wax allaala wixii alla ku amray soo ma aha naftaada ilaa aan waxba baaqi ku ahayn sheikhu wuxuu ku yidhi intaa haddii lagaa hela adiga fa hunaalika halkaas tadkhulu waxaad geli in shaa allahu tacaala fii zumrati asaalixiin waxaad dhex geli doontaa kooxda saalixiinta ah ee awliyada ah kuwaasaad ka mid noqon doontaa haddii intaa lagaa helo wey kitaabku muxuu ahaa miftaaxu soo dariiq alawliyaa maa halkaasu ka soo bilowda alla ka cabsi xubnahaagaad ilaaliso wixii ilahay ka xarimay wixii ilaahay ku fara aad la timaado inaan wax xuquuqa lagu yeelan karaa jirin intaaba haddii lagaa helo ummadda aad nabadgeliso tadkhulu waxaad geli in shaa allahu tacaala fii zumrati saalixiin
kooxda saalixiinta ayaad dhex geli doonta ee wanaagsan ee awliyaa raxmaanka loo yaqaan waka faslun sheekhu wuxuu yidhi wain aradta haddaad doonto an tadkhula inaad gasho fii zumrati khawaasi alculamaa culimada xulka ah haddaad damacdo inaad dhex gasho almurabbiina kuwaasoo wax tarbiyeeya haddaad damacdo inaad kuwaa ka mid noqoto aad ku biirto facalayka bialabi alxadiid facalayka waxaad laasimtaa oo aad la timaadaa bidalabi alxadiid inaad xadiiska aad dalabto wa samaacihi inaad dalabto dhegaysigiisa wa riwaayatihi iyo warintiisaba inaad dalabto ixtisaaban lilaah adigoo ilaahay kaga ajir xisaabsanaya caza wajal sheekhu wuxuu ku yidhi wain aradta haddaad doonto an tadkhula inaad gasho fii zumrati khawaasi alculamaa khawaas waa xulka khawaasi alculamaa waaye waa culimada xulka ah almurabbiina ee wax tarbiyeeya haddaad damacdo inaad kooxda inaad ku biirto facalayka bialabi alxadiid xadiiska dalab baro cilmi lxadiidka wa samaacihi dhegaysigiisa ku dadaal wa riwaayatihi warintiisa ku dadaal ixtisaaban lilaah adigoo ilaahay kaga ajar xisaabsanaya caza wajal intaa haddii lagaa helo takuunu waxay ahaanaysaa baa shiikhu ku yidhi niyatuka niyadaadu waxay ahaanaysaa fiihi cilmiga aad dalabtay an tacrifa inaad garato diina rabbika diinta rabbiga inaad garato caza wajal wa sunnata nabiyika sala allahu calayhi wasalam iyo sunnada nebiga intaa haddaad isla hesho takuunu waxaad ahaanaysaa baa shiikhu ku yidhi bidaalika arrinkaas sababkiisa waxaad ku noqonaysaa caamilan mid camal fala wa calaa awaamiri rasuul awaamirta rasuulkana waxaad noqonaysaa muxaafidan mid ilaaliyaad noqonaysaa waa arrin aad u cajo badan sheikhu wuxuu ku yidhi wain aradta haddaad doonto an tadkhula inaad gasho oo aad ku biirto fii zumrati khawaasi alculamaa culimmada xulka ah almurabbiina ee wax tarbiyeeya haddaad doonayso inaad kooxdaa ka mid noqoto facalayka bidalabi alxadiid wa inaad dalabtaa maxay xadiiska wa samaacihi wa inaad dhegaysataa wa riwaayatihi wa inaad warisaa ixtisaaban lilaah adigoo ilaahay kaga ajar xisaabsanaya caza wajal takuunu waxay ahaanaysaa baa shiikhu ku yidhi niyatuka niyadaadu fiihi bidalabi alxadiid wa samaacihi wa riwaayatihi ya markaad cilmiga xadiiska aada barato an tacrifa inaad garato diina rabbika diinta rabbiga inaad garato wa sunnata nabiyik iyo inaad garato maxay sunnadii nebiga inaad barato hadyigii nebigana aad barato intaas hadday isuga fadhiisataa sheikhu ku yidhi takuunu waxaad ahaanaysaa bidaalika arrinkaas sababkiisa caamilan mid camal fala wa calaa awaamiri rasuul awaamirta rasuulkana sala allahu calayhi wasalam muxaafidan mid ilaaliyaad noqonaysa sheikhu wuxuu ku yidhi wayakuunu laka waxa ku ahaanaya adiga wirdun wardi baa ku ahaanaya inaad ku wardido min aladciyati asaxiixa ducooyinka saxiixa ah althaabita ee ka sugan can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam taqra'uhaa waad akhriyi kulla yowm maalin walba waad akhriyi wa wirdun wardi baa ku ahaanaya min asalaati cala arasuuli nebiga inaad ku sallido sala allahu calayhi wasalam wa anta xaadirun iyadoo qalbigaagu xaadirya uu soo jeedo sheikhu wuxuu ku yidhi markaad cilmigii soo baratay ood wax fahantay wayakuunu laka wirdun wardi baa kuu sugnaanaya min aladciyati asaxiixa inaad ku ducaysato
دعويك صحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كالسبان دعويك النبي قد أخي ورد بيكون نغانا يانا ورد بتكالي نيسا ويكون تقرأها ودخليها كل يوم معنى والبا وين الورد يالتا هذا وحلقيا بيننا ورد جين ينسكب يريها ورد جين ينسكب يريها هيدا تقرأها كل يوم وورد باكوا هانا من الصلاة على الرسول نبي جينا تكسل له نبي جينا تكسل ليه وما هي هو مرة ولا جمعة صلى الله عليه وسلم وأنت حاضر أديك السوتشي ده وقلبه حاضر وياهي كأنك وحبت مد قلبك وتراه إنه أركيه نبيك مع المحبة له شعيل ملقبه شعيل لتشرنكي إيا والتعظيم لحرمته يوين ذا لو وينين هي حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وإن ضف والبع نبي أكتي سوينه قيمة وين نبي محمد وإن أكتي هذا قيمة وين كلية شيخ وعيري فأرجو لك وحنكون رجينا إياه بذلك أرنك السبب تسوى وحنكون رجينا إياه إن النبي قاعد كسر لده قلبي قاعد سوتشي هذا حاضرة محبة النبي حرمة النبي فأرجو لك وحنكون رجينا بذلك أرنك السبب كيسة وصول بركة الرسول إنك سوق قاعده بركة الرسول إنك قاعده إلى قلبك إنك قاعده بركة الرسول كلما النبي قاعد كسر لده وحويا وبركه وأرجو لك وحنكون رجينا بذلك أرنك وسبب كيسة وحنكون رجينا أن ترزق إن لقوا أرزاقه محبته النبي محبتي سين لقوا أرزاقه إيو ومحبة تأسي به إيو كديشدي سجعيل كده إن لقوا أرزاقه فذلك أرنكاس مصباح كل خير وطن أي يفتيني يفنسويه إن شاء الله تعالى